hay-ada amniga qaabilsan khaasat ninka u weyn qaybta la yidhahda criminal investigation department waan la hadalnay baaritaan culus ayuu bilaabay team ayuu bixiyey oo la yidhahdo homicide team ayuu bixiyey oo special team u bixiyey akhbaar galatana waan ka sugayaa 6 gabdhood hadda 6 gabdhood ilaahay baa idinku dhaariyay 6 gabdhood baa hadda la ogyahay inta la ogyahay 6 gabdhood waa gabadha waxaan ka carar xumaaday studentiga saaka iskoolka aaday ee la waayay xaafadda California wadankan bariyo kuma joogto saaxiib xiniyeeda ku joogta wadan baa noogu yaala cid aan kaga baqayn cid aan marti kaga nahay male kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan soo dhawaada odayga garmaha xaaladihii baan war in kaga wadaa waxa ka soo cusboonaaday maxaa la oran jiray xaaladihii gabdhihii Soomaaliyeed arrintu way ka sii daraysaa walaalayaal arrintu way ka sii daraysaa meel xun bay maraysaa 3 gabdhood baa la awal oo la waayay gabarna waa tii la hayay waxa ku soo biiray 3 gabdhood baa la gabarna meydkeeda oo tiba masal laga helay 4 taas ay ahaayeen waxa ku soo biiray in saakay xaafadda la yiraahdo California ee Nairobi laga afduubtay gabar Soomaaliyeed gabadha sawirkeeda hadda halkan saaran yahay oo Soomaaliyeed laga afduubtay halkan oo student iskuuleeya baa laga afduubtay California waxa kala soo cusboonaaday magaalada Garissa in gabar laga soo afduubtay xaafad la yiraahdo Buulariig xaafad la yiraahdo Buulasheekh baa la keenay gabadhii askarta Buulasheekh bay ka qabatay hadda station kala isku haya gabadhii iyo dadka wata muuqaalkeeda video xigan ka soo hadli doona insha Allah xaalada meel khatar ay maraysaa 4 gabdhood awal maqnayd 2 kala ku markii lagu daro 6 gabdhood baa gabdhaheena sii maraya inta la og yahay inta aan la ogeyn Allahu a'lam inta la ogeyn baa ka daran wallahi billahi inta la ogeyn baa ka daran waxa way xaalada meel khatar ay maraysaa adduunka dhan waa isku qasan yahay waxa way xaaladii bariga dhexe maraysaa saaxiibayaal anigu mar horaan ka digay dad badan baa xal ila soo hadlay youtuberada Nairobi oo gubtay waxaas way baqayaan dadku way baqayaan waxay isleeyihiin gabdhaha hadda ka hadashaan waa leeyahay xiriya oo dawladda adan barre ducaale ayaa ka hadlay oo yiri sheegay waxaan inay tahay tuugo is soo bahaysatay qofkii ugu horeeyo ka soo Allah oo yiri ruuxan waa tuugo hadda waxay la daawataan adan barre ducaale wuxuu ka yiri bal gabdhaha la waayay way dhacaan hadda waxaan war ku haynaa inay 3 gabdhood ay maqan yihiin 2 gabdhood oo ka soo joodaan xaafadda Islii iyo gabar kale oo ka soo jooda xaafad la yiraahdo Kayole asbuuci horena gabar ay oo Soomaaliyeed oo reer Garissa iyadana oo deganeed magaalo u dhow magaalada Mombasa oo Marekani ayaa sida loo waayay markii dambana meydkeeda meel loogu tagay iyadoo jirkeeda la jarjaray hay-ada amniga qaabilsan khaasat ninka u weyn qaybta la yidhahda criminal investigation department waan la hadalnay baaritaan culus ayuu bilaabay team ayuu bixiyey oo la yidhahdo homicide team ayuu bixiyey oo special team u bixiyey akhbaar galatana waan ka sugayaa bandula ciidamada booliskana waan lala hadalnay xilibanka meesha laga soo doortay mudane Yusuf waa daawteen adan barre ducaale wuxuu yiri wuxuu la hadlay dambi baaraha ugu weyn wadanka sidoo kale wuxuu la hadlay taliyaha booliska Kenya baaritaan degdeg ah galabta la soo siinay afshu sheegay adan barre sidoo kale annagana bulshada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay gabdho waxa arkay xal isxil qaamay oo yiri waxaan boor diyaarsoo iraan banaan baxan doofaar ficil xumaa loo cadaaba iduhu waxay xayawaan kale uga xun yihiin laxdu waxay xayawaan kale uga xuntahay neef markii laga qabsado way fiirsadaan riyuhuna way qayliyaan dameerku markii meel lagu dhagaa soo la cunayo ma hadlo dameer iyo lax yaana noqonine aan qaylino gabdhaheeni jirkeeni kartideeni xiniyaheeni nasabiyadeeni baa lagu dheeli 6 gabdhood wax yar maaha Nairobi waxa ka bilaabatay tuugo muuqaalkan hadda geeska saaran waxa dareemi kartaan wiilal Soomaaliyeed oo meel fadhiyaan nima soo weeraran bistoolada wata oo hubaysan nin bay soo tuureen wiilasha bistoolad saareen wiilasha way carreen Soomaaliyeed nin meesha iska taagan oo suud qabay taleefankii baa laga qaatay si raganimo leh mootooda ku fuulay waa u jeedaan kalo waxa way magaalada tuuga ka bilaabatay magaalada waa lagu kala guuray sidoo kale muuqaalkan waa arkaysaan asagana gabar baa taleefan laga dafayaa Soomaaliya oo waxa ka dafaya nin inta ka dawbada soo gaari gal raba bay gaariga ka rido dad baa u gurmaday annaga gabdhaheenu xoog badan ma lahan gabdhahan Soomaaliga ugaali bay cunaan nimanka way iska celin karaan laakiin annaga gabdhaheenu waa gabdho yar baradho cunay oo jilicsan annaga la ka xoog yaxniyo annaga wallahi billahi tallahi xalay markaan ka hadlay baalka qof hadli kale inuu sijir waa la wada baqay meel wax ka yimaadeen lama ogeyn dawladda dishay xagga way siyaasad way war gabar Soomaaliya siyaasad wax ka galay male Soomaalida wadankan bariyo kuma joogto saaxiib xiniyeeda ku joogta wadan baa noogu yaala cid aan kaga baqayn cid aan marti kaga nahay male
xildhibaanaa noogu jira wasiiraa noogu jira maxaa la baqnaa marka bulshada 47 milyan wax la qabnaa cidna marti uma nihin annaga iskala tafuuqayna hawiya daarood xagga bababa raxan weyn isaa ku hayna war waxaas ma jirto Soomaali wadanka way leedahay sharci bay ka qaadanaysaa way baashaanaysaa tuug hadduu yimaadana tuug soo xili waa iska cilinayna anagu tuug baaleen waxaan anagu laynayna tuugadeena way hameen walba oo leenahay naga qabto tuug soo xili anagu wax naga qaadayo gabdhaheena kuma xad gudbay lix gabdhood hadda lix gabdhood ilaahay baa idinku dhaariyay lix gabdhood baa hadda la ogyahay inta la ogyahay lix gabdhood waa gabadha waxaan ka calal xumaaday studentiga saaka iskoolka aaday ee la waayay xaafadda California degan ee yartaa ee qurxuleyda ee dhibicda dhiiga ee yartaa ee mustaqbalka la 15 jirta gabadha hore fiiri inta ilkaha laga daadiyay midda kala sawaaxiligana fariin baa u diray nagama dhaxayso in gabdhaha ilkaha laga siibo gacmaha laga jaro anaga sawaaxilig waxaas nagama dhaxayso video sawaaxili aan idin soo duubi doonaa idinka sababtoo waxaas waa khalad gabdhuhu anaga waa xiliyaheena waa kartideena waa dadnimadeena gabdhaha Soomaaliyeed kama kaftano haddaad gabdha iyo waxa keentaana anagu cid laga badanay meel Soomaali baana 10 milyan anagu aaban 150 milyan baa dhig waxaan waa la baaraya dawladdu way baaraysaa say sheegtay hay'adaha dambe baarista Kenya way ku mahawleeyeen booliisku way shaqaynayaan waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo ciidanka booliiska maxaa la jiray ciidanka Soomaaliyeed khaasatan ka howlgal xaafadda Islii sidoo kale siyaasiyiinta ugu horeeyo xilibanka xaafadda Kamakunji Yusuf Xasan oo hawl aad iyo aad u weyn galay sidoo kale hawshaas uu mas'uul ka yahay mudane honorable adan ducaale oo leeyahay Soomaalidu meeshan qofka kaliya maanta fiirsanaysa adiga way iyo Yusuf Xasan iyo askarteena kale shaqada ay qabateen iyo ilaalada iyo hawsha ilaa xalal la socotay anigu waan la socday waana u jeeday halka hawsha laga sii wado annaga mid baan laga rabaa marka YouTuber Soomaaliyeed oo Nairobi jooga ilaa TikTok wiilal ka hadlaya arkaya saaxiib libaxya dhaleen baati gabdha ka hadlaya arkay boorar noo soo diyaariya ana ugu horeey maalin noo calaamadeey boorarka ugu badan lacagtooda ana bixinay ballan ilaahay wey boorarka ugu badan ay gabdhaheena iyo magacyada lagu qoray ana bixinay maalin aan isku nimaano aan banaan baxno YouTuberada ka hadla arrintan sharci ma aha cid guriga ku imaan mayso cid sharci ku weydiin mayso cid ku cayrsan mayso qabiil ma aha قبيل معهن صاحب يا واحد أنا ما قبيل بنقول أنا هذا ما تلقى سنتين قبيل الدفاع ياو أسكرت الدفاع ياو تذكر ولا سمعنا هاي تبع بيجي يوتيوبر بدل ما بيجي قدو بعدين قطو محلي يجري ملاك وروحان أنا سكدينا وركبناها من كهذا وروحنا نداوده ومدة الصومالية بقول كيبا لحدا يشن وقبلوها وحنا نداوده وروحها كرتدنا وما تنقص عن هالكان أنكو جوجنا وحن عنه نطلعي ننوجي وقبلوه قبر لقى مارم digniinta ugu dambeysay waxaan kula talinayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed inay guriyaha joogaan kuwa waxbarashada aaday iyo taxi Soomaaliyeed in la saaro oo la og yahay familka hooyooyinka suuqaga aaday in la raaco gabdhaha in la raaco mid walba gabadha ugu yar laba qof inay raaco hooyadu waa gabar laftigeedu hooyo hadii 6 sano jirto dumar bay soo galaysaa hooyo la dilay hooyo waa gabadhu 10 sano jirto waa hooyo saano ma adkaysan karo ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxa la hadlayaa YouTuberka iyo TikTokleyda iyo kuwa baraha bulshada ku jira iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed joogta xaafadda Islii iyo Garis iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed Kenya joogta waxa la is ilaaliya Garis hawshu ka bilaabato waa bilow hal ilaaliya gabdhaha aad iyo aad iskoolada kala fogyiin labada Garis waa qaanaan way kala fogyiin meelaha gabdhaha aad loo ilaaliyo hawsha maxaa la oran jiray ha socoto tuugada la iska ilaaliyo guriyaha xilli hore la soo galo khaasatan gabar iyo wiil baa israacno wiilasha laftigooda hadii lacag iyo wax lagu tumo habeen madaba lagu aftuumanay dadka telefoonada iPhone 12 ka wata ee magaalada ugu laafyoonay joojiya le waxaan rajaynayaa dad badan inay ka hadlaan in baaqayga sidii aadan ducaale xalay baaqayga ugu soo jawaabay oo uu maqlay baan rajaynayaa dadka oo dhan inay maqlaan uga ka dhigiyaan uga kacaan mudaharaadkana aan sameeyno wada garbahayn la saaxiibayaal waxaan ka gubanaya oo ka danqaraya anigoo maaragtay waliba xanuun yar dareemaya waxaan ka gubanaya ka dhidhinaya gabdhaha Soomaaliyeed 6 gabdhood oo Soomaaliyeed wax yar ma aha 2 ka qaylineen 4 baan ka qaylineen 6 ma ka kalayn karo وهذا كرمه اللي كرامة كركنا أن دعيسنا قبل سؤاله هلو دعي صلاة الليل أن تكونوا إلهي أسكو حرنا أنا عدو اسكعلنا وبالله توفيق.